madashan caawan isugu nimid waxa weeyaan sida boorka halkaan idinkaga cad waa xafladda abaalmarinta shakhsiyaadka sanadkii tagay 2017 halka waxaa ku sawiran aad arkaysaan 8 qof iyo raadiyo gaalkacyo 8 qof waxaa ognahay gobolka Mudug inuu yahay gobol ka duwan gobolada kale ee Puntland ama Soomaaliya maanta alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican baan joognaa gaalkacyana maanta wajiga kale leedahay dadkii u horseeday marka wajiga maanta gaalkacyo ay leedahay markaan la tashanay bulshada qaybeeda kala duwan markaan la tashanay dhalinyarada waxaan soo xulnay inay yihiin dad halkaan kaga muuqda hal doorkii gobolka Mudug u soo shaqeeyay oo waliba u soo shaqeeyay si volunteernimo ah ma sha Allah waxaan diyaar u nahay in maxaa la oran jiray wax kasta oo horumar ah inaan ka qayb qaadano anagoo kaashanayna dhalinyarada qaybeeda kala duwan dhalinyarada jaamacadaha dhalinyarada maxaa la oran jiray madasha isdhexgalka hormuudka horumarka ina figures oo dhalinyaro ah anagoo kaashanayna insha Allah waxaan diyaar u nahay inaanu gacmaha isqabsano ka wada shaqeyno horumarka magaalada gaalkacyo iyo dhamaan gobolka Mudug barnaamijkan waxa ii tahay aniga farxad gaar ah waxa halkaan laga xusay guddigii sida gaarka ah nolosha shaqeynayay xagga cawaal dhismaha iyo tartamada socday waxa ii sii tahay aniga dhiirigelin iyo waxyaalo aan aad ugu sii farxay bay ii tahay wax badan baan qaban karnaa oo intaan ka badan waxaan jeclaan lahaa waxaan rajaynayaa inta halka fadhida in waxa weeye sanadka dambe hadii lahayd ma qayb badan oo kamid ah xagga fariisato waa shaqada dadkaas ay qabteen mid la mid ah hadalnaya intii soo agaasintay xafladan quruxda badan ee dhalinyarada Mudug ugu horeeyay gudoomiye Jaafar waxaan si aad ugu faraxsanahay markii maanta uu wadana Jaafar ii sheegay xafladan iyo muhiimadda ay leedahay oo ah in la dhiirigelinayo hal doorkii 2017 inta halkan fadhiday in ka sii badan ba maskaxdeeda ku soo dhaceen runtii waxaan leeyahay waad asirteen wax xaqiiqo ah in dadkan halkan caawa lagu abaalmarinayo ay yihiin iyo qayb kale taba oo ka maqanba runtii inay yihiin dad mutaystay abaalmarin iyo ka badanba taariikhduna ay xusi doonto insha Allah ilaahay idinkii waa dadkii u dhabar adeegay haduu la kuray baahiyo kala duwan oo bulshadu ay qabto waxyaabo badan bay tan oo kala soo siyaadisaa waxay soo siyaadinaysaa qof walba meesha uu ku aadan yahay inuu ka soo dhalaalo oo ka shaqeeyo sababtoo ah wuxuu ogaanayaa xataa haddaan loo mahadnaqin dadkiisu inay wax ugu taalo hawshaas runtii aad baan uga mahadnaqayaa dalada Mudug mudane Jaafar oo runtii aad u soo shaqeeyay tanna suurtageliya maanta ito asaga iyo tiimkiisaba inay dhacdo waxaana leeyahay shaqadan waxay ka weyn tahay reer gaalkacyada oo dhan oo maanta ito intay baxeen banaankaas hal eray ku wada qeydiyay waxa ka wanaagsan inaan sheegno qayb inaga mid ah oo aan dhahno waxbay noo qabteen waan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha dalada Mudug iyo dhamaan dhalinyarada gaalkacyo oo dhan sida qiimaha leh oo ay dadkooda u garab taagan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan laba qodob ku darsado oo ah qodobada hadda hor yaallo oo muxuu ahay abaalmarinta lagu siiyay hal door hadda fadhiya waxaan rabaa in aan muxuu ahay niyadeyda ka hadlo niyad wanaag inaan ka hadlo oo sida runtii la tahay aan ka hadlo oo ah garab istaaga dhalinyaradu ma aha waxaan jeclaaday waa waajib saaran waxaanu nahay waayeelkii magaalada waxaanu nahay dadkii dalka xoolihiisa ku soo bartay waxaanu nahay dadkii maaragtay way aragnimo badan helay marka waxaan rabnaa berrito carruurtayadu inay helaan hogaamiyaal fiican